23 sano oo ay hooyada federaalka ee Puntland jirto laguma guuleysan dhaqaajinta saansaan dimuqraadiyadeed mandiqaduna waxa ay dhawaanahan ku sii dhawaanaysaa cirif kale oo xagga siyaasadda ah laakiin bilihii la soo dhaafay madaxweyne Deni waxa uu muujinayay dhibanaan ka duwantii looga bartay hogaamiyaashii ugu horeeyay gobolkaas balse hadda waxa soo yeeraysa dhiila ka duwan filashadii doorasho tijaabo ahayd oo ka dhici lahayd 3 degmad oo ka mid ah mandiqada Puntland 25 bisha Oktoobar ee sanadkan sida ay cadeynayaan macluumaad aan helnay guddiga doorashada kumeel gaarka Puntland ee afka qalaad loogu soo gaabiyo TPEC oo laftirkoodu ku milan arrimaha siyaasadda damacyada ururada gudahooda ah waxa ay daha ka rogayaan in ay heleen codsi uga yimid madaxtooyada Puntland kuna wajahan in dib loo dhigo doorashooyinkii loo madlanaa dhamaadka Oktoobar laakiin guddigu aan jeclaysan dhawaaqa iyo warka ka soo yaray xagga madaxtooyadu waxa ay bilaabeen inay maalin ka hor shaaciyaan in kaararkii codbixinta ay diyaar yihiin oo la geynayo 3 degmo ee doorasho dabcan sida muuqata waxa ay ahayd tilaabo ka hortagid ah iyo dhawaq ay shub uga dhigayeen warka ka imaan doona galaangalka dhinacyadu ay ku xooganaayeen sababaha ugu weyn ee dubudhacan loo cuskanayo madaxtooyadu u doonaysa waxa la xaqiijiyay inay tahay lama arrimood waa inay madaxda urur siyaasadeedka ka ah mashquul ku ahaayeen muddooyinkii ugu dambeeyay arrimaha doorashooyinka heer federaal oo aysan wali waqti u helin gudaha ururka taas beddelkeeda ay doonayaan marka hore la ogaado natiijada sanduuqa doorashada ee Muqdisho iyo inaysan jeclaysanin geedi socodkan oo cabsi badan ay ka taagan tahay durba ururada siyaasadda Puntland badankood waxa ay ogolaadeen sida aan xaqiijinay in dib loo dhigo doorashada tijaabada ah laakiin culayska ugu weyn ee ay Puntland wajahayso ayay tahay arrintu waqtigaas waxayna ku waayi doontaa nooc kasta oo taageero ah oo ay ka heli lahayd beesha caalamka gaar ahaan marka laga hadlayo hanaanka socod baraka dimuqraadiyadda ee Puntland dhaqaalaha ay haystaan hadda guddiga doorashooyinka Puntland ee TPEC waxa ay ku eg tahay bisha November ee sanadkan wakiilada caalamiguna waxa ay hore walwal uga muujiyeen dib u dhigidii u dambeysay markaas ay soo qadimeen shuruudo cusub oo ku wajahnaa dhaqaalahaasi bixintooda beesha caalamku waxa ay muujisay inaysan kalsooni ku qabi karin in Puntland ay ka ruu sheegayso hanaanka dimuqraadiyadda bilowgiiba waxayna sheegeen in 3 degmo oo tijaabo ah aysan suuragal ahayn bas la isla 3 degmo ayaa hadda lagu dhicilayahay sida muuqata waxaanu ogaanay in qoraal rasmi ah guddiga doorashada kumeel gaarka ee Puntland ay beesha caalamka iyo bahwadaagta mashruuca dimuqraadiyadda Puntland ugu ballan qaadeen inaan dib u dhac dambe jiri doonin xilligii ugu dambeeyay ee dib loo dhigay hadda guddiga waxaa saaran imtixaan weyn oo siyaasadeed waxaana laga sugayaa waan qabanaynaa doorashada Oktoobar iyo ma qaban karno waxaana jawaabtaasi laga sugayaa ka hor 25 bisha Oktoobar ee sanadkan guddigu haddii jawaabtoodu ay noqoto ma qaban karno ma heli doonaan wax kaalmo caalami oo taageero ah waxa la joojin doonaa dhammaan deeqaha ay hadda ku shaqeynayaan lacagta ay haystaanna waa lagala laabanayaa xilligaasi kadib sida aan ogaanay guddiga xubno ka mid ah waxa ay xaqiijiyeen inaysan hadda taageero ka helin gabi ahaanba xukuumadda Puntland haddii dhaqaalaha laga joojiyo si joogitaanka guddigan ee shaqada waxa ay ku soo ururaysaa mid aan waxma dhaamin guddigii ka horeeyay oo ahaa magacuyaal waxayna waji gabax ku noqonaysaa xubnaha hoggaanka guddigana madaxweynaha Puntland Deni ayay tallaabadu ku noqon doontaa tijaabo adag haddii la go'aamiyo in 25 Oktoobar aan tijaabada 3 degmo doorashooyinkooda la qaban shaki ma leh ayay leeyihiin dadka siyaasadda Puntland oo darasaya in doorashooyinka soo wajahan ee 2023 mar kale la qaban doono doorashooyin la mid ah kii uu xukunka ku yimid Deni ee odayaasha beeluhu ay soo xuleen 66 baarlamaanka ah ilaa hadda ururka mideeye oo ay ku jiraan siyaasiyiin aysan isku aragti ahayn xukuumadda Puntland si gaar ah musharaxii uu Deni kaga guuleystay tartanka doorashada ayaa urur siyaasadeedka kaliya ee si cad u diiday jiritaanka dib u dhaca doorashooyinkan una muuqday mid u diyaar garoobay hanaanka qabsoomida doorashooyinkaas guuleysara gudoomiyaha guddiga TPEC oo hadda wajahaya imtixaan siyaasadeed ma qaadan doonaa go'aan badbaadiye mustaqbalkiisa xagga siyaasadda
maadaama weli uu yahay nin han leh gaar ahaanna marka ay joogto ka run sheegidda xaaladda dimuqraadiyadda Puntland mana mari doonaa jidkii uu maray Allah u naxariistee Axmed Kismaayo oo iska casilay gudoomiyaha guddigan markii uu arkay in xukuumaddii xilligaasi aysan ka go'nayn doorasho rasmi ah masaguuleed waxa uu sii dhowri doonaa inuu naawilo jaanisyo siyaasadeed oo kale iyo xukuumadda Puntland oo uu taageero mashruucaasi uga helo